Kani waa guriga la dejiyay boqorada isteelka. Gurigan ayaa ah mid aad u qurxoon, sidoo kalena ah mid runtii baaxad ahaan ah mid aad u weyn. Boqorada ayaa ahayd mid aad ugu faraxday markii gurigeeda rasmiga ah lagu soo dhaweeyay, maadaama muddooyinkii ugu dambeysay ay ku sugnayd gudaha magaalada Muqdisho. Boqorada markii ay ka soo degtay gegida diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa, waxaa halkaasi kaga hortegay asxaabta, taageerayaasha iyo ehelada Haykal, waxaana yahayeen kuwa ay dareensiinayeen farxadda boqorada in heegan iyo heelan loo yahay. Waqti xaadirkana ay tahay gabar reer Somaliland ah, waxaana yahayd mid goobta lagu kala kaftamay maadaama boqoradu ay ahayd mid ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, halka Haykalna uu ka soo jeeda Somaliland. Waxaa muddooyinkii ugu dambeysay xiisad iyo sidoo kale xamaasad u yeelaya baraha bulshada. Haykal iyo boqorada isteelka jacaylkooda guuleystay iyo sidoo kale jacaylka masaafada dhan ee isaga gooshay Hargeysa iyo Muqdisho, taas oo noqotay mid dhalinyaradu ay aad u jeclaysteen ayna aad u hadal hayaan. Boqorada ayaa ahayd mid la soo agaasimay sidoo kalena la soo boqoray soo dhaweynteeda magaalada Hargeysa, taas oo xaflado kala duwan iyo sidoo kale shirkadaha kala duwan ee Somaliland ay hayeen kuwa ay si gaar ah u daneynayeen ayna dareensiinayeen in boqorada ay timid magaaladeeda. Boqorada ayaa waqti xaadirkan waxay joogtaa gurigeeda rasmiga ah, halkaasi oo si weyn loo boqoray loona dhisay gurigan aadka u qurxoon, kaas oo waqti xaadirkan ay tahay hoygeeda. Waxaana la filayaa in maalmaha soo socda boqorada isteelka uu dhici doono arooskeeda, taas oo lagu soo hoyn doono gurigeeda rasmiga ah, maadaama Haykal iyo boqoradu ay in muddo ah is sugayeen, haddana ay tahay waqti xaadirkii ay gurigooda iyo arooskooda uu ku soo gabagabayn lahaayeen farxadooda, maadaama waqti fara badan ay ka qaadatay ayna hayeen kuwa mar walba bulshadooda dareensiinaya wanaagga, muxibbada iyo jacaylka ka dhexeeya. Waxaana yahayeen bulshada kuwa ay ku riyaaqeen kuna tilmaameen boqorada iyo Haykal inay yihiin laba shaqsi oo isku qalma, lana joogo in ay isguursadaan. Waxay yahayeen bulshada kuwa ay sugi waayeen arooskooda, maadaama ay lahaayeen muuqaal kasto iyo sidoo kale sawir kasto ay soo galaan boqorada isteelka iyo Haykal. Waxaana sugi la'aanahay arooskiini, hase ahaatee markii lagu dhawaaqay meherka boqorada isteelka iyo Haykal, waxay noqdeen runtii mid aad loogu wada farxo, laguna tilmaamo arrinta boqorada iyo Haykal inay tahay wax aad u wanaagsan oo la wada filayay. Ugu dambeyn, boqorada isteelka iyo Haykal ayaa noqday lamaanayaasha ku midooba nolosha, waxaanay noqdeen lamaanayaashii ugu masaafada dheeraa ee guurkooda iyo jacaylkooda ka mira dhaliyay. Waxaanay ka mid noqdeen labada shaqsi ee baraha bulshada ugu saameynta badan oo Soomaali oo dhan ay hadal hayso. Waxaanay ku mutaysteen wanaagga, dhaxalgalka, jacaylka iyo muxibbada ay isku hayaan. Waxaana yahayeen kuwa marnaba aan khilaafin intii baraha bulshada la arkayay jacaylkoodana uu ka muuqday, walow ay barbar socdeen dad xumatashiila nacaybka u buuxishay iyo sidoo kale dad doonayay in mar uuna isku dhacaan Haykal iyo boqorada isteelka. Hase ahaatee boqorada iyo isteelka iyo meherkooda ayaa ka dhacay gudaha Muqdisho, halkaasi oo aroos aad u qurxoon loogu dhigay. Waxaanay ka soo degtay gegida diyaaradaha Hargeysa, halkaas oo ehelada, qaraabada iyo asxaabta iyo taageerayaasha boqorada iyo Haykalba ay halkaasi ku soo dhaweeyeen. Waxaana yahayd boqorada mid loo galbiyay gurigeeda aadka u qurxoon, waxaana yahayd mid saacadihii ugu dambeysay soo duubaysay sawirro iyo muuqaallo, taas oo waqti xaadirkan ay ku faraxsan tahay farxadda ay la qaadanayso saygeeda iyo gurigeeda cusub ee waqti xaadirkan ay u hooyatay, maadaama boqorada isteelka iyo Haykal ay yihiin lamaanayaal baraha bulshada caanka. Muddooyinkii ugu dambeysana ay baraha bulshada ka weerarayeen dad wada xumatashiila ayaa ahaa kuwa aan dheg jalaq u siinin, waxaana yahayeen kuwa muujinaya cududda iyo awoodda iyo kalsoonida jacayl ee u dhexeysa lamaanayaasha qarniga Haykal iyo boqorada isteelka. Dhalinyaradu waxay yahayeen kuwa ay aad ugu faraxsanaayeen jacaylka guuleystay ee boqorada isteelka iyo Haykal, waxaana yahayeen kuwa ku dayanayay, waxaanay muujinayaan waqti xaadirkan in jacaylkooda uu noqdo mid ka suntan
una iftiima sida haykal iyo boqorada isteelka, waxaana yahayeen dhalinyaradu kuwa mar walba ku taamayay in jacaylka sida boqorada isteelka u guuleystay iyagana kooda u guuleysto, maadaama qof kasta oo dhalinyaro ah oo dunida duusheeda saaran uu jecel yahay qof uu lamaana iyo sidoo kale nolol la wadaago, maadaama waqti xaadirkan uu jacayl haysto, taasina ay tahay mid markasta qof walba uu ku haminayo. boqorada iyo haykal ay yihiin lamaanayaasha qarniga ee waqti xaadirkan doonaya in ay mar walba ka yaabsadaan bulshadooda jacaylkooda iyo guud ahaan muxiibada ay isu hayeen, taas oo mar walba bulshada inta wanaagsan ay la gargar taagan tahay hambalyada iyo sidoo kale bogaadinta, taasina ay tahay mid loo baahan yahay mar walba in bulshadu ay ku dhaqanto sidoo kalena ay ku hoggaansanto wanaagga, taas oo ay tahay wax aad u wanaagsan in la dhiirigeliyo laba qof oo iscalmaday, isjeclaaday, isguursaday, aakhirkiina aqal galay, bulshada la arkayay jacaylkoodana uu ka muuqday, walow ay barbar socdeen dad xumatashiila nacaybka u buuxishay iyo sidoo kale dad doonayay in mar uuna isku dhacaan haykal iyo boqorada isteelka. hase haatee boqorada iyo isteelka iyo meherkooda ayaa ka dhacay gudaha muqdisho, halkaasi oo aroos aad u qurxoon loogu dhigay, waxaana kasoo degtay gegida diyaaradaha Hargeysa, halkaasoo ehelada, qaraabada iyo asxaabta iyo taageerayaasha boqorada iyo haykalba ay halkaasi kusoo dhaweeyeen, waxaana yahayd boqorada mid loo gelbiyey gurigeeda aadka u qurxoon, waxaana yahayd mid saacadihii ugu dambeysay soo duubaysay sawiro iyo muuqaalo, taas oo waqti xaadirkan ay ku faraxsan tahay farxadda ay la qaadanayso sayigeeda iyo gurigeeda cusub ee waqti xaadirkan ay u hooyatay, maadaama boqorada isteelka iyo haykal ay yihiin lamaanayaal. baraha bulshada caanka muddooyinkii ugu dambeysana ay baraha bulshada ka weerarayeen dad xumatashiila ayaa ahaa kuwo aan dheg jalaq u siinin, waxaana yahayeen kuwo muujinaya cududa iyo awoodda iyo kalsoonida jacayl ee u dhexaysa lamaanayaasha qarniga haykal iyo boqorada isteelka. dhalinyaradu waxay yahayeen kuwo ay aad ugu faraxsanaayeen jacaylka guuleystay ee boqorada isteelka iyo haykal, waxaana yahayeen kuwo ku dayanayay, waxaanay muujinayaan waqti xaadirkan in jacaylkooda uu noqdo mid ka suntan una iftiima sida haykal iyo boqorada isteelka, waxaana yahayeen dhalinyaradu kuwa mar walba ku taamayay in jacaylka sida boqorada isteelka u guuleystay iyagana kooda u guuleysto, maadaama qof kasta oo dhalinyaro ah oo dunida duusheeda saaran uu jecel yahay qof uu lamaana iyo sidoo kale nolol la wadaago, maadaama waqti xaadirkan uu jacayl haysto, taasina ay tahay mid markasta qof walba uu ku haminayo. boqorada iyo haykal ay yihiin lamaanayaasha qarniga ee waqti xaadirkan doonaya in ay mar walba ka yaabsadaan bulshadooda jacaylkooda iyo guud ahaan muxiibada ay isu hayeen, taas oo mar walba bulshada inta wanaagsan ay la gargar taagan tahay hambalyada iyo sidoo kale bogaadinta, taasina ay tahay mid loo baahan yahay mar walba in bulshadu ay ku dhaqanto sidoo kalena ay ku hoggaansanto wanaagga, taas oo ay tahay wax aad u wanaagsan in la dhiirigeliyo laba qof oo iscalmaday, isjeclaaday, isguursaday, aakhirkiina aqal galay.